dawladda hoose gabilay oo runtii dadaal iyo tacab gelisay inuu tartankani dhaqaaqo oo uu socdo runtii aad iyo shaqo fiican ba socota ciyaartooyada waxaan kula dardaarmayaa inaynu ixtiraamno garsoorka iyo maamulka tartanka inoo wada kubadda akhlaaqlana lagu ciyaaro sidoo kale saxaafadda dawladda hoose oo runtii maanta halkan joogtana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa inta ugu badanna ay dhaqaalaha ugu badan ku bixiso dawladda hoose magaalada Gabiley taasoo ka kabta muxuu ahaayay adeegyada garsoorka oo muxuu ahaayay maalgelin ku sameysay kooxo laftigooda maalgelin ku sameysay muxuu ahaayay bas u diyaarisay garsoorka muxuu ahaayay soo qaada oo celiya oo ma celina dawladda hoose sida uga qayb qaadato ciyaaraha waxay dawladda hoose degmada Gabiley ka tahay ubuucda aad uga mahad celinayna inay markii koobaad noo dayactirtay rooga ama garoonka Moha Farax oo ay dhalinyarada ku ciyaarayaan waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayna inay noo keentay bahda caafimaadka iyagoo iskaashanaya dhakhtarka weyn ee magaalada Gabiley runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dawladda hoose ay u soo kordhisay sanadkan bahda sportiska ama horyaalkan ama tartankan gaadiid ama bas qaada garsoorka iyo kooxa magaaladii ka soo qaada kadibna celiya bahda garsoorka iyo bahda nabadgelyadaba runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa gudoomiye Cabdirashiid Haybe Faarax oo runtii dhiiri geliyay in kooxaha aan gurnada qaadan inay agab ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu ka taageero inay ka qayb qaataan tartankan horyaalka heerka koobaad iyo heerka labaadba aad iyo aad baan mudanaha uga mahadnaqnaa inuu garab u noqdo waxa kale oo ku faraxsanahay inuu dhawaan ay baahisay dawladda hoose degmada Gabiley nashqada cusub ee uu yeelan doono garoon caalami ah oo uu yeelan doono gobolkan Gabiley oo farxad ku soo kordhay bahda sportska ee gobolka Gabiley ka wasaarad ahaan ka dhalinyaro ahaan ka sportis ahaan aad baan ugu faraxsanahay